isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaarsiiyay haweenay uu dhaawacay mid ka mid ah libaaxyada magaalada Hargeysa oo ku xanaanaysto wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Oran Cadde oo fiidkii caawa baxsaday haweenaydaasi oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada in madaxa uu ka dhaawacay qudhaydo oo dul tagay waxaan arkay in dhaawacyo culculus ay ku yaalaan mid ka mid ah qaraabada gabadhaasi oo ahaydna qofkii ugu horeeyay ee goobta tagay ee soo qaaday dhaawaca ayaa telefishinka Home Cable waxay uga warantay xaalku sidoo ahaa iyo dhaawaca culus ee soo gaadhay gabadhan iftiin bashiir gabadha uu libaax cunay ma qaraaba ahayd qaraabati marka sidoo cunay meerka adu goob joog ma meey goob joog ma inankeedii yaraa ka qabsaday ayaa yimid aniga guriga ayaa ku yimid wiri hooyada libaax baa qabsaday iyadoo albaabka dusheeda taagan ayuu haga dambe kaga booday kadibna uu jiidaana waa yimid adeer hooyaday libaax baa cunay kadib anigii odagayga wada araray oo toosh baanu qaadanay waxaan ka garawaa dhaxdiisa iyadoo jiiftay ayaan ugu tagnay waan soo qaadnay qofkiina la qaado waa weyne dirqiya tala markaanu qayline ay dadku nagu yimideen dirqi baan gaari baan xaafada taagan waan ku soo qaadnay gaari baan ku soo qaaday imika dhaawaceedu suu yahay dhaawad wax ulusiye meelaha uu ka cunay xagee kamid ah halkaas kamid ah qoorta iyo timaa intaas uu ka qaaday iyo adu garab ka inta dambe oo dhan baa ka waxan ku riixay cid kale oo cunay ma laydii sheegay meelna nooma sheegin wali ma maqalay ma arag adigu libaax meed aragta libaax ma arag anugu ma arag laakiin inankii yaraa bir hooyada libaax baa qabsaday uu la taagna albaabku sidaa la taagna inanka yar mas'uuliyiinta laamaha ammaanka ee xukuumaddu waxay ilaa hadda ku hawlan yihiin in ay soo qabtaan libaaxaasi fakaday oo iyagoo uga digaya dadweynaha libaaxaasi isla markaasna ugu baaqaya dadku inay guryahooda ku xaroodaan ilaa inta la soo qabanayo libaaxan oo ay ka taxadaraan wararka soo socday telefishinka Home Cable ayaad ku daawan doontaan haddii la qabto libaaxaasi iyo haddii kale waa Xasan Galeyd Home Cable TV magaalada Hargeysa